يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى مواعيد جود مولاك. tusaale kale ayaan ku siinayaa si aan isku barbar dhigo oo aan ku tusiyo farqiga u dhaxeeya hadafkaaga inaad magacaawdo. waxaan jeclahay inaan tusaale ku siiyo nin waa shakhsi aan aad muhiimadda loo siinaynin, balse waxa uu gaaray darajadii ugu sareysay. waa qofkaasi bedelay noloshayda, wuxuuna iga bedelay dhakhtarkii jirka, wuxuu ii bedelay dhakhtarkii ruuxda. waan hubaa inaad ninkaas taqaanaan magaciisa, qof kale ma aha, waa Sheekh Axmed Diidaad. bal aan fiirino hadafkiisa. Sheekh Axmed Diidaad, haddaad garanaysaan nolosha Sheekh Axmed Diidaad, cilmiga waxa uu ka gaaray fasalka 6 ee iskoolka. waa fasalka 6 ee iskoolka. lacagta lagu bixinayo iskoolka ee la saga dhiibayo aad ayay u adkeed. waxbarashada inuu ka tago ayay arrintu noqotay. markii uu ka gudbay fasalka 6 waxbarashadii ayuu isaga tagay. waa nin macno weyn aan ku fadhin. waxaa loo dhibaato geliyay dantuna ku qabsabtay inuu ka safro Hindiya meeshii lagu dhalay uuna aado Koonfur Afrika. meel alaabta lagu gado ayuu ka shaqayn jiray, kadibna wuxuu noqday darawal. markii uu joogay Koonfur Afrika wuxuu caado ka dhigtay inuu aad u ciriiriyo kuwa Kirishtaanka faafiya ee markasta oranaya islaamku waa faa'iido la'aan. islaamku ma ahan diin naxariis leh. islaamka ayay weerarayeen, middaa sababteeda asagu cariiri ayuu dareemayay. sidaa darteed raqbo iyo jeclaansho gudaha naftiisa ayaa jiray, taasoo ahayd waxaan u istaagi doonaa inaan u jawaabo dhammaan waxyaabahay ku andacoonayaan kuwaasi diinta islaamka ka soo horjeeda. waxaa la ii dhalay si aan jawaabo munaasab ah u siiyo kuwaasi Kirishtaanka faafinaya. xaqiiqatan qof iimaan leh ayuu ahaa. mar ayuu kitaab si kadis ah ku helay. kitaabkaasi uu helay waxa uu ka helay qol. kitaabka boor ayaa ka buuxay. kitaab booreysan gebigiisa ayuu ahaa. kitaabkaasi magaciisu wuxuu ahaa Idhaarul Xaq. waxaa iska lahay raxmatullaahi qaranwey, allah u naxariistee. waddadii uu hadafkiisa u mari lahaa waa uu helay. waxa uu aqoonsaday sidee iyo halka uu ka bilaabayo. waxa uu halgamayay muddo 40 sano ah ilaa waqtigaas. dhammaan waxaa gacan u taageen qasaawasadii Kirishtaanka iyo baadarayaashii. bal malaysta qof fasalka 6 ee dugsiga hoose ka gudbay oo 40 sano la halgamayay kuwaasi Kirishtaanka faafinaya caalamka ugu waaweyn. arrintaas waxay sanadkii 1984 ama bilowgii 80-yadii. wuxuu ku dhawaa inuu dood galo. wuxuu la galiyay baadariga Jimmy Swaggart. isla waqtiga Jimmy Swaggart waxa uu ahaa nambarka koobaad, ninka ugu awoodda badan kuwa Kirishtaanka faafiya, ninka ugu awoodda badan ee ugu caansan ayuu ahaa. kaliya isbuucyo yar dooda ka hor, mid ka mid ah dadkii tirada badnaa ee Sheekh Axmed Diidaad la joogay waxa uu ku yiri, Sheekh Axmed Diidaadow, anigu waxaan ahay mid ka mid ah dadka aadka ku dhageystay aadka u tirada badan, laakiinse waxaan doonayaa inaan talo yar ku siiyo. ninkan Jimmy Swaggart ah aniga aad baan u aqaanaa. adoo mahadsan ninkan hala doodin. adiga dhanba cad hilib ayuu ka dhiga doonaa, si fudud ayuu ku laqi doonaa, wuuna ka adkaan doonaa. bal maleeya nin ka mid ah jamaahiirtii Axmed Diidaad talo ayuu siinayaa. Jimmy Swaggart hala doodin. adiga ma taqaanid, aniga ayaa si fiican u aqaana. waa uu ka badin doonaa, si fudud ayuu kaaga badin doonaa. Jimmy Swaggart waa baadariyaasha ninka ugu caansan ee telefisyoonada laga daawan jiray xilliga. iyagoo telefisyoonadu bixinaya milyoonaad dollar ah maalintiiba si uu ninkaas u joogo Kirishtaankan u faafiyo. sheekheena Axmed Diidaad, ma sha Allah, ilaahay ayaa kaalmeynayay. Mareykanka ayuu aaday. waa dhulkii uu ku barbaaray Jimmy Swaggart, dowladdaasi uu caanka ka ahaa.
أحمد ديداد وأتجي هل كاس أيو كل الضوضي الحمد لله ثم الحمد لله إلهي وافجنتيسا أحمد ديداد أيا ضودي وقعد كاذين إنك كلا بالملايستا قف أن معنوين كفدين oo xitaa madrasada oo galay aan ka gudbin fasalka lixaad ee bilowga baadarigii kirishtaanka noqdayna dhagax weyn oo ku aadan wadadii ay mari lahaayeen waa hal nin oo kaliya waa Sheekh Axmed Diidaad Alle subhanahu wa ta'ala ayaa waafajiyay dhammaan kirishhtaankii oo dhan ayuu ka yaabsaday waa uu ka hor yimid bal hadda hadafkiisa aan taxliilino ugu horeyn waa hadafka iyo yoolka islaamiga ah hadafkiisu ma wuxuu ahaa islaamka dartii ma waafaqsanay quraanka iyo xadiiska saxiixa ah arintaas ilaahay dartii iyo rasuulkiisa dartii ma ka ahayd haa way ka ahayd taasina waa sababka awoodda ugu yeeshay inuu hadafkiisa xaqiijiyo midda labaad hadafkiisu ma xadidnaay haa hadafkiisu waa u xadidnaa wuxuu ahaa waxa la ii dhalay si aan uga jawaabo dhammaan sheegashooyinka ka soo horjeeda islaamka waxaan rabaa in aan jawaabo munaasab ah dul dhigo dhammaan waxyaabaha ay fahansan yihiin kuwa gaalada ah oo aan ka tirtiro fahamkaasi qaldan midda saddexaad isagu ma faa'iiday haa wuxuu faa'iiday aakhiro ayuu faa'iiday insha Allah Alle subhanahu wa ta'ala janno ayuu ku abaalmarin doonaa insha Allah balse taa waxaa dheer xitaa adduunyada ayuu ku faa'iiday sida uu ugu faa'iiday aakhiro oo kale nin dhiganayay fasalkii lixaad sanadkii 1986 ee helay abaalmarinta ugu wanaagsan ee caalamka wuxuu helay abaalmarinta Malik Faisal ee caalamiga ah ee u adeegida islaamka waa nin dhameystiray fasalka lixaad ee iskoolka oo kaliya abaalmarintaas darteed waxban uma uusan sameyn laga yaabay inuu $1,000 helay laakiin arintaas darteed uma sameyn wuxuu u sameeyay Alle dartiis iyo rasuulkiisa dartiis Alle subhanahu wa ta'ala wuu abaalmarin doonaa aakhiro xitaa adduunyadu uu abaalmarin doonaa waa hadaf guuleystay hadafkiisu ma aha mid sareeyay ma wuxuu ahaa mid munaasib ah haa hadafkiisu wuxuu ahaa mid sareeya isla waqtigaana wax kasta ayuu bedelay markii kirishtaanku muslimiinta ay dhibaateynayeen akhlaaqdu aad ay u hooseysay waqtiga ninkaasi Axmed Diidaad kalsooni ayuu ku abuuray qulubta kumanaan dhalinyaro ah xitaa aniga wuu ugu abuuray ugu yaraan waxaan awood u yeelanay waqtigaas inaan madaxyadana kor u soo qaadno wadciga iyo xaalkan ku noolnahay mid quuslamiyuu ahaa haa wuu ahaa muxuu noo sameeyay Axmed Diidaad wuxuu noo sameeyay arrimo badan oo ka kooban shubahaadkii looga soo horjeeday islaamka ayuu xalliyay dhammaan kutubtii kirishtaanka iyo kuwoodii kirishtaanka faafi jiray ayuu soo kulmiyay kutubtii uu qoray Jimmy Swaggart wuxuu bilaabay inuu radiyo sidaad ogtihiinba sida John Jal Christ iyo dhammaan kuwii kaleba marka ay weerarayaan quraanka iyo islaamka wuxuu bilaabay inuu u jawaabo kutubtoodana uu daraaseeyo Baybalka weeraradooda iyo hajamaadkooda ay quraanka weerarayeen ayuu adeegsaday wuxuuna ku dabaqay Baybalka kadibna jawaabihi ayuu helay niyadiisu maxay ahayd niyadiisu ma ahayn inuu caan noqdo ma ahayn inuu helo abaalmarinta Malik Faisal niyadiisu waxay ahayd soo Alle iyo rasuulkiisa u raali geliyo bal fiiri mabda ma ku sugnaa haa mabda ayuu ku sugnaa malaysta qof dadaalayay oo halgamayay muddo 40 sano ah hada taariikhdiisa garanaysaan mushaarkiisu aad ayuu u yaraa wuxuuna inoo sheegayaa si kitaabada yarka ee cadcadka iyo kuwa madmadowga ah uu daabaco kumanaan shuruud ayaa lagu xiriyay kadibna uu oofinayay waan oofinay shuruudii ma noo suurtagal inaan daabacno kitaabada yarka ma sha Allah waa uu joogtay ilaa uu hadafkiisa يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى مواعيد جود مولاك هرعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى مواعيد جود مولاك